asxaabtu waxay ahaayeen jiil marle araga kooxo aan dan ka lahayn sicirka adduunyo iyo saxwo dhaqaale dhaqankoodii waxa uu suuro geliyay in islaamku gaaro halka uu maanta dunida kaga calaamadsan yahay waxay isku fidiyeen jiha walba iyadoo ay taariikhyahanadu wariyeen in badi asxaabtii rasuulku ay ku qurbaxeen bannaanka dhulka carabta haddii aynu taariikhda dhanka kale iska taagno waxa inoo soo bixi doonta inaanay jirin diin fikir falsafad iyo isfidin la heera tii islaamku dunida ku gaaray weliba maalmo yar iyo masaafo fog dhowr boqol oo sano ayuu islaamku xaqiijiyay inuu taabto Atlantic Ocean iyo Spain marka foolka loo jeediyo dhanka galbeedka barigana uu dacal dhaafay China waqooyiga Hindiya iyo badda Pacifiga intii lagu jiray dhalashadiisii islaamku waxa uu ku fiday meelo kamid ah agagaarka gurigii uu ku dhashay ee Makka xilliyadiisii socod baradkana waxa uu gaaray dhammaan dunida carabta ee bariga dhexe waqooyiga Afrika Iran Afghanistan Pakistan iyo dhulka Uzbekistan iyo Turkmenistan dabacsanaanta iyo cadaanta fariinta uu siday falkinta fikirka tawxiidka uu dunida ka sii jiray fardaha geela iyo ka faa'iideysiga ilbaxnimooyinka hore ee masaarida indiyaanka iyo Griiga ayaa soo dadajisay inay aqbalaan dad dhalasho ahaan midab ahaan iyo bay ahaanba kala jaada kuwaas oo ku kala dhaqan Arabiya Aasiya Afrika iyo Yurub muslimiintu waxay gaareen xeebaha bariga Afrika gaar ahaanna saldhig lagu magacaabo Makadisha oo saldhig ciidan u ahaa boqortooyadii Beershiyaanka waxayna u bixiyeen Muqdisho dhinaca jasiiradaha waxay gaareen meel dayaxo aad u ifdheer yahay waxayna u bixiyeen Juz al-Qamar jasiirada ay sida ugu magacdareenna waa jasiiradaha Comoros ee ka tirsan badweynta Hindiya dal ahaanna dhaca Mozambique Musa ibn Bay oo qabsaday dhulka Afrika qayb kamid ah ayay ugu magacdareen dalka maanta loo yaqaano Mozambique Yusuf Ali oo asna la wareegay isla qayb kamid ah Mozambique maanta ayay ugu magacdareen Sofala